المحيين على ذلك الله قادر وعرفنا وقتك عما كفى إلي سنة قفوا بينه كل سبت طلبة دقيقة هل دقيقة وحي ما هيسو أبو المكي ولا تقانان ما رأيك حقيقة تياترك وبرنا وابيل قرنك سنة كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي أبي أحمد أريد إنو كويو الدستور بيلي إنو كويشو إثيوبيا إنك خوما ميسو إن شاء الله ويعني دونتا عليه يسعب قلب كشاكي أيان دويت أدس لغو سيهي إن شاء الله لغو مع فلاحي دونو وعرلينا سيلع أنك عليه أمد كلنا ehelkeena waaye addis badeen awood ku qaadan mayso waan ka adagnahay nagama itaal sarayso. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad ayuu mahadsan qalabka sida ayaa joogta oo go-aanka noo qaadaya heeday waxaa jooga xiriirka gudaha shaqaalaha Soomaaliya waxaa jooga dad badan waxaa jooga madax badan oo xildhibaano iyo wasiiro isugu jira waxaan codsanaynaa kun jeer hadalku cidda uu gaari waayo inay raalli ku noqoto. waxaan ku bilaabayaa madaxda wasiiru dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan leenahay faray tafadal soo dhawow halkaan inoo adigo maas. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان شعبك الصوماليين قبل كبنادر ولا ريال وحيد كم هاد علينا أبابل كدرين كالصومالي نمو وطنيات شعيل يدلكينا تعيشين أدمان تأسسو بنا بحدين حرونت الدولشركة تهصون قبل كبنادر وحوية تنين ندلكينا أن كدفاعنو aan u midowno inaannu ka soo horjeesanno damaca guracan iyo dhulboobka uu wado maamulkiinala dariska ah ee uu hogaaminayo abiy axmed. taasaan leenahay waxa weeyaan taariikho soo jireenna bayna soo dhex maray waqtiyo fara badan bayna halganno badanna soo galay taasoo aynu ogsoonahay baddeenna inaanay maaragtay si dhib yar aan ku degayn. waxaan rabaa inaan halkan aan ka macneeyo maanta abaabulka lagu jiro inuu yahay aan u macneeyo dadka reer waqooyi ama reer Somaliland in aanay ahayn mid looga xun yahay horumarkooda laakiin lagaga difaacayo maamulka Ethiopia inuu dhulka ku qaato ku xalaalayso ku hanjabay abiy uu dadka ku hanjabay hortiisa soo baarlamaanka ka hadlaya inuu rabo inuu ku qaato bad geeska Afrika ku taala. waxaan leenahay damacaas uu masuulka galayo dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed waa soo horjeeda. waxaan leenahay aad baad mahadsantihiin mar dareenka wadaniyadeed Soomaaliya gool Soomaaliya midnimo Soomaaliya islaamnimo. asalaamu calaykum. isku tiirsanaye haddakiina taagdarane taaga ayaw tilmaamo waxba haddakiina taagdarane weligiine calayow tilmaan wacanba xidigtiina tirinaysa dhexda kaaga sii taale. waxaan rabaa inaan danka ciidamada taag aan haddana kalima siino. waxaa jooga sargaalka ugu sarreeya ciidamada dalka waxaa sii daraa shareec guud ashirdaada sii daraa xeelta galad soo ama kuunahay.
lagu seexdo hasaahan hilbaadsiida hasaahan nin lagu seexdo hasaahan hilbaadsiida hasaahan soo jeedo suweenu feejigo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo ha adkaato ha guulaysato shacabka Soomaaliyeed ee maanta halkaan iskugu yimi ciidamada Soomaaliyeed sidaad la socotaan xooggoodii saraakiishoodii dhallinyaradoodii waxay ku maqan yihiin difaaca waxay la dagaalameen khawaarijta soo saas lama socotaan aan hamar dhahno guulaysta taasu nagama celino dabana muxuuha mashquulinayso inaynu difaacano dalkeenna inaynu difaacano dhulkeenna inaynu difaacano dalaheenna inaynu difaacano ummadeenna soo sidaas ma aha haleesha ayaantaan wuxuu ahaa baddeennu beec ma aha saasoo ma aha yaysan idinka hoos bixin marka hadday baddaasu baxdo Ethiopia iyo baddu imisay isu jiraan 400 cabdisalaam waxay isu jirtaa 450 iyo wax intaasaa la sheegay ilaa xuduudda laga galo oo weliba deegaanka Soomaalida la dhaafo ogaada haddii baddaas la bixiyo oo baddaas ay niyeysteen maba helayaane ay qaadan lahaayeen dhulka u dhaxeeya meesha ay isleeyihiin waa ku ammaanaysaan oo ay ku nool yihiin Etoobiyaanka ilaa iyo meeshan waa lagu siinayaa qof Soomaaliya kuma noolaanayo dadka Soomaalida waa laga ciribtiraya xoolo ku dhaqan mayaan beero ka falan mayaan yaan marka kaliya ha arkina 20 kilomitir maana waa 200 300 400 kilomitir taas ma fahmina tuutaha gaduudkiyo cagaarka Soomaaliya dalkeena ma difaacanayna baddeena ma difaacaynaa dhulkeena ma difaacaynaa sharafteena ma difaacaynaa hooyooyinkeena ma difaacaynaa carruurteena ma difaacaynaa guul iyo sharaf allah idin siiyo Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo guulaysta tuutaha gaduudka iyo giirka iyo cagaarka gabaldhaye sidiisii geestii uu ka xiga geedaha ku yaaliyo tuutaha gaduudka iyo giirka iyo cagaarka gabaldhaye sidiisii geeskii uu ka xiga geedaha ku yaaliyo aan ciidda laga garan kuwa loo gashaanahay diyaaradaha gowle ka dheereeya guuxe gantaalaha cambaartiyo kaalaha garguurtiyo madaafiicda goobtiyo sawaariikhda gaarka gujiska iyo naabaha kuwa loo gadaaje ku gumaada cadowga iyo geesiyaal jiraana aadayaa maasan tahay maamasanto abwaanada qaranka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo siyahayaha wasaaradda ururka haweenka qaranka wasaaradda haweenka Soomaaliyeed marwa amiir soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبك الصوماليات شعبك قبل كبنادر مدحنا قرنك انت ماشي يسوكت من أربعة الصوماليات دمان وحايد النايهي قولي قبل نمو وحاما انت نسوكو صوبحني بنامبحان بدينو إيب معها صوماليا تاكا إليه قف إنو سوها ويستو ووحان لقادن كرين anigoo ku hadlaaya magaca haweenka Soomaaliyeed loo yacde ilaa raas caseer ilaa raas Kamboni haweenka jooga marna ogolaan maayaan ragga Soomaaliyeed waxa ay yiraahdaan haweenka sidooda ayay u qaadanayaan rag iyo haweenkana waa la wada qaadanaa hubka haweenkii ama hadda ka horeeya ragga haddaan fiirino maanta hooyo kasta waxaan u malaynaa inay meesha ay taagan tahay ay u diyaar garoobaysaa inay baddaas difaacdo hadduu ilaahay yidhaahdo Soomaali baale Soomaaliya lama hawaysan karo horaan loogu dhicin hadda lagu dhicin karo hadda Soomaaliya waqtiga hadda lagu jiro ay baraarugsan tahay hadduu ilaahay yidhaahdo qofkii ku qaldamayna
madaxdii qaldantayna qof wadanka Soomaaliya qof dhulkeeda taa ka jari karo ma jiro maamul goboleed ama hogaamiye oo goboleed ama maamul ma iibin karo madaxda qaranka waxaan leenahay haddii ilaahay yiraahdo wax walba oo ay shacabkiina waa idin diyaar waxaad ku dhawaaqdaan oo ku hogaamisaan dalkan ayay raacayaan madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu la dagaalamayay qawaariijta dagaalkii qawaariijta lagu jiray ra'iisul wasaarihii dalka waxay heegan u yihiin dalkan wax alla wixii badqabkiisa ah laakiin wax la iibinayo iyo wax la kiraynayo oo Soomaaliya dhulkeeda iyo badeeda iyo hawadeeda iyo barigeeda midna ma jirto mana aqbalayaan waana nagu hogaaminayaan ummadda sharafta iyo ciziga Soomaaliyeed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان نوبلنا إن آن دفاعنا ذلك ديار مونا هاي وقبلك أقبل من ديار قروة إن شاء الله أهلا ما صرتها يقول لك السماء وحاجة الله يوكل إلى كورة حجر المعرية إكس وزير كورة وزارة الفافين تعطوك كورة هكا إلى الملكة عطانا صدق بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلامة يا شعبك الصوماليين لما انت هالكان isugu soo baxay shacabweynaha Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed halkan maanta isugu soo baxay inay muujiyaan dareenkooda wadaniyada ah ee u taagan muddo dheer oo aynu dhibaatooyin iyo dagaal ku jirnay dalku inuu isbedelo in dalku midoobo in laga xoreeyo khawaariijta in wixii khilaafaad ee jira la xalliyo Soomaalidu heshiiso oo midowdo oo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed meel walba ku haysta laga baxo waxaan amaanayaa dareenka shacabka Soomaaliyeed had iyo jeer muujiyaan mar kasta oo dalka Soomaaliyeed uu la kulmo ama uu galo cidhiidhi siyaasadeed iyo mid amni waxaan walaalaha Soomaaliyeed u sheegayaa dalka Soomaaliya waa midnimo ayaanu halkan u joognay in wixii khilaafaad ee jira sidii haddaba Jabuuti ka dhacday wada hadal iyo walaaltinimo lagu dhameeyo ayaanu halkan u joognaa dadkayga la dareennahay ma dhacayso dhulka Soomaaliya in la kala qaybiyo ma dhacayso dhulka Soomaaliya in la iibiyo ma dhacayso xeebta Soomaaliya istaraatiijiyadda Soomaaliya in cidaan wax ku lahayn wax laga siiyo ma dhacayso aad iyo aad baan dareenkiina u ammaanayaa waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda iyo wada jirkooda waxaa laga sheegayo hadda waqooyi iyo dawladda Somaliland ee la leeyahay dhul Soomaaliyeed baa Itoobiya aqliga Soomaaliyeed bay cay ku tahay wax la aqbali karayo maaha lama iibiyo dhul cid lama siiyo ma heli karaan ummadda Soomaaliyeed baa iska leh shacabka Soomaaliyeed ama Soomaaliyeed ayay ku leeyihiin xornimo doonkii iyo dhammaan guulihii Soomaaliya gaadhay ee taariikhiga ahaa way joogaan dadkii qadiyadaas iyo dareenkaas lahaa waqooyi way joogaan ma suuroobayso waxay tabanayaan baanu madaxda ka codsanaynaa muddo dheer way soo jiidatay in si degdega loo xalliyo oo dalka la mideeyo laakiin taaka dhulka Soomaaliya cidna ma bixinayso waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan xildhibaanada aan ka tirsanahay xildhibaanada Soomaaliyeed xilligan adag ee lala dagaalamayo khawaariijta ee muddo dheer aynu dhibaato ku soo jirnay la doonayo shacabka Soomaaliyeed inuu dhibaatada ka baxo ee damaca Itoobiya soo baxay inay wax kasta oo khilaaf ah oo kale iska dhigaan oo midoobaan
oo mooshinada iska dhigaan oo u midoobaan danta Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ilaa aynu soo afjarno kala qaybsanaanta iyo dhibaatada aynu ku soo jirno muddada dheer aad iyo aad baan mahadsantihiin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo aad iyo aad baan mahadsantihiin aad iyo aad ayaan mahadsan tahay xildhibaan adigoo ku hadlaya codka xildhibaanada Soomaaliyeed si gaarana meelaha u taataabatay waa ku mahadsan tahay Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo إلى ضم المدرسين وتتقرب مكاني كعلاوي سين مغشال صوماليا انت الضم غير تصدم شغالها قبلك صوماليا مكساسة مقابلية وما سجين وحكالاي حملات دولة وحكاو طريقا مكرمك مسود الله كرنو إلي دقيقة الله لو قرح على الساقين ينضف الضيال وحكالاي نبسود ويا وزير الدولة من احتوى إلى بخاري فلسفة بسم الله الرحمن الرحيم برنامج عن سلام يا شعب الصومالي مالك استي جوجان gaarahaan inta maanta halkan isugu soo baxday dareenkooda muujiyaan waxaan hadalkayga ku biirinayaa Soomaali meel kastay joogaan diidmada ay diidan yihiin heshiis ku sheega ama waxa lagu magacaabay safgaradka ka dhexdhacay Ethiopia iyo Muuse Biixi Cabdi kaasoo ah sharci darro oo aan marna shacabka Soomaaliyeed aqbali karin horay ugu maaha waxaanoo kale nin kasta oo damac siyaasadeed leh waxa uu ku raadin jiray damaciisa siyaasadeed in badan oo ka mid ah ilaa qalqalayaashii dagaalka oo maanta Soomaaliya taariikhda markii dib loo raaco u nugleeyey ummadda Soomaaliyeed inay meeshan soo gaarto Soomaaliya waa inay ogaataa Itoobiya waa cadow guun ah Itoobiya waa cadow guun ah waxay dhisaysaa guri aan dhismaynin waxa ay raraysaa badda Soomaaliyeed ama dhul Soomaaliyeed taaka kamida haba yaraatee ma jiro waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto fursad aan rabo inaan ku faahfaahiyo Soomaali meel kastay joogto baddeena beec maaha ay qorato macnaheedu ma taqaanaan macnaheedu waxay tahay sida hadda maaragtay qof kasta oo qaladkan samaynaya ama si guracan u taageersani waa qof raadinaya manfaco maaliyadeed iyo mid siyaasadeed ku raadinaya waaye hadday noqon lahayd kuwa Soomaaliga ah hadday noqon lahayd kuwa shisheeyaha ah hataa maaragtay shisheeyaha maalin kasta u ololeynaya waa kuwa loo busineska loo yaqaano oo lacagta la siiyey Soomaalida kale ee meelaha ka qaylinaysa waa inaad ogaataan waa qof kasta oo Soomaali ah oo taageersan ama u dalacsan heshiiskan guracan ee baddeena iyo dhulkeena lagu dhaxal wareejinayahay waa qof lacag la siiyey sidaas daraaddeed baddeena beec maaha macnaheedu waxay tahay qof kasta oo la walweynayahay lacagaa la soo adduunu soo qaatay noocay raba ha noqoto sidaas daraaddeed Soomaaliya dhulkeeda iyo baddeedu marna lagama tanaasuli doono taaka lagama tanaasuli doono qof kasta oo muwaadiniinta dalkan ka midowna waa askari kayd ah dhalinyarada meel kastay joogaan haweenka odayaasha aqoonyahanka culimaaduunku waa askari kayd ah waxaan wadanahay laga bilaabo maanta askarta kaydka ah macnaheedu ma ahana in askarteennu ay nambar ku xadidan yihiin Soomaaliya over 50 milyankeedu waa wada askar aad iyo aad u mahadsantihiin Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Soomaali waa mid waxaan guuldarraysiin doonaa riyada khaldan ee Itoobiyaanka ee goonka ee soo bilaabatay qarnigii 18aad bartamihiisii soo bilaabatay oo ilaa maanta socota intaa waxaan rabaa inaan ku daro arrintaasi ma ahan arrin sahlan maanta mudaharaadku bilowday wuxuu socon doonaa iyo dagaalkani wuxuu socon doonaa ilaa arrintaas laga xaqiijiyo guul Soomaaliya ha midowdo
هاي سراعه من نبان ورجينا يا صومالي آدي هذا ما سنتين وأنا أصلي إلى ملاحظة إلى وقتك نصر قارصة وحالينا هاي بلان بحينا وحال عصرينا ملاحظة قارن كده يتوقع السيدة كانت وقدم مامون قبل الجيلة كوا أولين ممكن نتعيو صورة وهي بيضاء كدعلا كتباية كدعلا قراية كدعلا نوكس الجوهر كدعان وأنا الله بلان بح صوماليا وسنتاي كان نمر صوماليا الأولى الدفاعي أنا قبل كبلادي هداناي وأنا قايمينينا وأنا هكي عندنا إن شاء الله الجليل صوماليا أمينينا صوماليا أنسرعه صوماليا أمينينا وزيرنا شرفت الحجبانة أن هذا الوقت في عديد وعن جعل هذا كسودة وزير دولة حفيظ الوزراء وأنا سودة وفريق تفضل وما تنتهين ومدى الصوماليات أو مدح إيو مسؤول إيو شعب له وهالك يسويمت كنتي درين ماشان كم مغضى أما ميلها مظاهرات كان لغا سمين ما أنت ماشا كم مغضى ومدكي صوماليات لقن كوها ومدكي ومدى الصوماليات مركا لواحد قدبو مركا ومدى الصوماليات لواحد قدبو كي أي موتنجرين ويا فالله أنا هستاغنها إيو قوة كلا وبضل waxay astaan u yihiin Soomaaliya oo dhulkeeda difaacanaysa ciday doonta ka difaacato taalooyinkaas waxa ka tagay oo taariikh ah awoowayaashiin ayaa ka tagay oo halkay uga tagay waxaa la rabaa awoowayaashii wixii ay diideen wixii ay ogolaan waayeen inaydaan ogolaan idinkoo maanta ka cudud badan ka aqoon badan ka dad badan inaydaan ogolaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo dhulkeenu beec maaha baddeenu beec maaha cid iibin karta oo beecin kartana ma jirto wixii beec ah oo suuq la keensado ayaa la iibiyaa timir haddii la xado in la beeciyo la isku dayo kii xaday ma iibin karo suuqa kuma iibin karo caqligeenna iyo sharafteenna ayay ceeb ku tahay qof Soomaaliyeed oo loo soo tababaray inuu waddankan difaaco oo askari u ahaa oo dhaqaalihii waddanka wax lagu baray inuu isku dayo inuu iibiyo oo yidhaahdo waxbaa iga beeca waa caqli xumo waa damiir xumo kulligeen buu nagu yahay qofkaasi ku yahay annagu haddaan ogolaanana damiir xumadaas way nagu tahay runtii waxa meesha yaalla waxa weeyaan Soomaaliya 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 هم ملولو هنولا طايس رعضو هل كدكين وحويان بدين وبيع معها وحو بيع نغماها إذن كنا قوليستا سومالي قوليستو يا هذا يوم تدي غفر وقوديا لو ذلك إناد كنت فاعل وحكستو وإلى هاي القسية عقلي علمي أود يوحكستو على هارتي هذا يوم تنتين قوليستا هذا يوم تنتهي صحافة وعكاوتنا خلف كينا هلقوا في سكوتو ديران هلكاس قفنا ومرعنا هرتجا لسو استاغو وليس بيشا يدوكي عنو فرالي يزدك قانا ولياشا قبل كقفة منه وإنه قعنته كويسا هذا وكالي وحافظنا دوينا يا وزير كبرسوة وفتاسيتا ولما كان معفية تفضل الوزير كتو دو Somali hanolaato waxaan rabaa inaan idinla wadaago aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin isoobaxa waddaniyaddu ka muuqato waxaan aad iyo aad ugu wanacsanahay Soomaaliya inaan la qabsan karin Soomaaliyada maanta lama qabsan karo tiisha lama qabsan dhacdooyin badan baan u soo taagnaa
boqolkun ka badan oo ciidan Itoobiya xamar yimid oo qabsaday dawladii yar baa ka adkaaday taariikhda qoraysa waa la yaqaanaa oo inagu aynaan isdilin cidina inagama adkaan karto waxaan rabaa inaan idinla wadaago mar labaad iyo mar saddexaadba waxaad leedihiin hoggaamiye aan baqaynin oo go'aan leh madax Soomaaliyeed oo diyaar ah ma isdhinac taagaysaan ma dhinac taagan tihiin war waxaa hoose aan iska dayno waddankeennii waa la qaybqaybiyey meeshaynu marana waa la ogtahay waa fiicannahay waxaan aad iyo aad uga xumahay inay jiri karaan dad Soomaaliyeed oo shakisan oo ka shakisan midnimada ummadda Soomaaliyeed ka shakisan waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo warkayga calankaasi Hargeysa maanta ka loolanaya oo burcu ka loolanaya oo ceergaabo ka loolanaya oo laascaabo ka loolanaya calankaasi qariib maaha shacabkiisuna waa yaqaana cid iskale Soomaaliya waxaan kaga baxayaa gobolka Banaadir iyo shacabka degan waa kurskii dadka Soomaaliyeed waa wanaagii iyo maxsuulkii ummadda Soomaaliyeed waa dagaalanteen isdhinaca taagteen ilaaliseen qarannimadiinna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Soomaaliya lama qabsan karo waxaan kaga baxayaa ugu dambayn waxaan farayaa wadaagayaa labada gole ee qaranka Soomaaliyeed dhammaan inay jiraan shuruuc aan laga gorgortamin oo ku saabsan midnimada oo qofka ku xadgudbaa uu dembilo noqdo waa in hay'aduhu noo shaqeeyaan baa la rabaa kuma kala duwanaan kara calanka assalaamu calaykum watacaala wabarakaatu aad iyo aad baa mahadsan waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka ee jooga halkan qof walba degmadiisa ha tago dib ha isu fiiriyo sidoo kale ardada baxaysa maamulayaasha ha tagaana meesha waa yaqaaniin ha isfiiriyaano degmo walba ha isfiiriso sidaa daraaddeed waktiga annagoo ka faa'iidaysanayna waxaa ku soo dhawaynaya wasiirka kalluunka masar axmed fale tafaal wasiir Soomaali baa leh waxa weeye halkan waxaan codkayga ku biirinayaa anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed inaan Soomaaliya weligeed cidna aysan qabsan aanan la qabsan karin ummadda Soomaaliyeed waxay ku faani karaan maanta gobolka Banaadir oo dadkiisu ay hormuud u yihiin ummadda Soomaaliyeed inay u yihiin caasimadii Soomaaliyeed ay tahay inay waxa ay muujiyaan macnaheeda ay tahay in la wayacde iyo reeskambooni intaba la isla qabo ummadda Soomaaliyeed weligeed lama gumaysan taariikhda xilliga gumaysiga xitaa dadka la iibsado oo la dhoofiyo Soomaalida ka mid ma ahayn history waad baari kartaa waxaan leenahay halkudhagga dawladdan wuxuu ahaa Soomaaliya halkudhaggu dawladdan wuxuu ahaa Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la macnaheedu ma aha inay taas tahay Soomaalida qayb ka mid baa la iibinayaa qaybta kalena ma aragtay waan ogolahay macnaheedu waxay tahay nabadda waa naqaanaa colaadana waa naqaanaa nabaddu waxaan u nahay horseed colaadana waxaan u nahay dad iska difaaca waxa karaamadooda iyo sharaftooda ka hor imaanaya Soomaaliya taaga ka mida dhulkeeda iyo baddeeda iyo cirkeeda intaba la aqbali maayo meesha aan taaganahay daljirka daastan way waxaa loo sameeyey askarigii Soomaaliyeed ee ku dhintay halganka oo aan magaciisa la garanayn waxaan leenahay Soomaalida kumanaanka ee nool maanta waxay diyaar u yihiin inay dalkooda dadkooda iyo diintooda intaba difaacaan annaguna waxa weeye waxaan nahay hormuudkii ummadda Soomaaliya u dooratay inay hoggaanka ay u qabto xukuumaddan qaran ummadda Soomaaliya waxay ku baxaan ee hor istaagtay abaarihii jiray ka shaqaysay shabaab la dirirtay maantana diyaar u ah inay xorriyadda dalka inaan la dhaawicin ay hor istaagto ayadaa oo isku duuman oo isgarab taagan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo aad waa umahadsantihiin عليها وقت وعريري ملاحظة وحكا عطرنا وقت جالس وقوقوان
وحصل إلى ويجي حصل معلم فريق الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. dadka Soomaaliyeed maanta waa keen damaca guraan nawaadiideen damaca guraan hawngoobo daandamo ogolin Soomaaliya ama dadka Soomaalida ah ummad weligeed daandaasi ogolaan nabadana jecel ayay ahayd maantana waa sidii kaleeto waxaan ka jawaabaynaa gardarro kasta xadgudub kasta daandaansi kasta Soomaalida way ka jawaabaysaa wayna ka jawaabeen ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad runtii ummad nabadda jecel baan nahay ummad wada noolaanshaha iyo darisnimada jecel ayaanu nahay looma fahmi karo loomana qaadan karo dad la soo hunguriyeyn karo oo dhulkooda si sahlan ugu qaadan karo taasna waan caddaynay waana u taagannahay aad iyo aad u mahadsantihiin shicibi oo wanaagsani aad iyo aad u mahadsantihiin shicibi oo wanaagsani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadayuu mahadsan yahay wasiir xasan si uu noogu soo gaabiyey waxaan jeclahay wakhtiga noo ka faa'iidaysanaynaa waxaa halkan jooga gudoomiyihii gobolka banaadir duqi magaalada muqdisho oo amaamulkatan amarka iyo isuduwidda madaxda qaranka sokow asagoo aabba u ah waxaan jeclahay inay ku soo dhaweeyad iyo soo dhawaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho gudoomiye soo dhaweey fariya taqada وياهي بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدأنا البيع معها ممكن البيع معها شعب كصوماليين مقالة مقدشة دول كان بنادر هلا لا لانو وساسو حلقانتين ودود دفاعيسين بدينا dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan kuwa boorama joogo iyo kuwa Hargeysa joogo iyo kuwa Burco joogo iyo kuwa Daafaha joogo waxaan leenahay gobolada kalena ku daysadaano ee ha muujiyaan shucuurkooda ha muujiyaan wadin maad celinayaa dada iyo Soomaaliyeed iyo adaa dawladda iyo mas'uuliyiinta halkaan taagan intaba waxaan leeyahay waa kuwa santii sidii qaanteen oo u difaacanaysiin dalkiina waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya qaarkood runtii ayaguna ka jawaabay dulmiga ay samaynayso dawladda Itoobiya qaladaadka ay kuma maasantihiin dawladda Soomaaliya xukuumadda baarlamaanka iyo madaxweynaha sayma jawaabayna way ku maasan yihiin shucuurteena way u jeedaan annaguna diyaar ayaan u nahay sidaa day laga dhigay ardaga qofkayna ugu dambe xoolahayna badayna dhulka kalmataad ugu soo tagu baaru kala badan mas-uuliyiinaad badan Somalia
dalkeennu iib maaha baddeennu beex maaha dhulkeennu beex maaha cirkeennu beex maaha soomaaliya waa leh soomaaliya yaa difaacaayo dadkeeda soomaaliya yaa difaacaayo gabdhaheeda soomaaliya yaa difaacaayo wiilasheeda soomaaliya yaa difaacaayo soomaaliya yaa difaacaayo soomaaliya yaa difaacaayo ardaydeeda aaway ardaydii soomaaliya yaa difaacaayo macallimiinteeda soomaaliya yaa difaacaayo dhakhaatiirteeda soomaaliya yaa difaacaayo dadkeeda soomaaliya yaa leh waxaan halkan isugu nimaannay waxaannu wada ognahay inaannu cadowgana ogaysiino cadowga maxaan leenahay dadkeennu beex ma aha dadkeenna laguma soo xadgudbi karo dadkeennu waa lama taabtaan dalkeennu waa lama taabtaan dhallinyarada oo dhan waa yeelka odayaasha gabdhaha mutacallimiinta qof kasta waxaa laga rabaa waxa uu dalkiisa ku difaaci kara maanta inuu muujiyo qofkii qalin haysto qofkii qori haysto qofkii hanti haysto qofkii carab iyo maskax iyo xiriir hayo qof kasta maanta waa maalinteedii dalka yaa iskale carruurta soo socotaa iskale dhaxalku waxaannu farriinta dhabtee gaarsiinaynaa jiilasha soo socdo waxaannu dalka soomaaliyeed qaato cadowga soo hawaystay inuu dalka soomaaliyeed qaato waxaannu leennahay kuuma suuragelayso annaga difaacayno meel kastaynu ka difaacaynaa halkaynu ka difaacaynaa dalkeenna lughayaynu ka difaacaynaa lughayo saylacbaynu ka difaacaynaa xuduudahaynu ka difaacaynaa hargeysaynu ka difaacaynaa dooramaynu ka difaacaynaa dalka oo dhan baynu ka difaacaynaa dalku beec ma aha dadku ha isu diyaariyeenoo halganka waa laynagu soo simay waana la soo gaarsiiyey annaguu gacanteenna ku jiraa annaga ayaa laynooga baahan yahay dalkeenna inaynu difaacanno madaxdana waxaannu rabnaa inay nagu hoggaamiso annaguna waxaannu idinku hoggaaminaynaa shacabkii soomaaliyeed haddaannu nahay inta uu qof naga harayo oo dhibix dhiigga ay nagu jirto hal taako oo dhulkeenna la qaadan maayo soomaaliya dalka innagaa iskale soomaaliya soomaali baa leh soomaaliya dalka yaa iskale soomaaliya ha noolaato asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soomaaliya waa hagaag baadla muusikaye maanta muusikka mahadsanid aad iyo aad ayay u mahadsantihiin muusikka
adikoo aad iyo aad u mahadsan shacabka soomaaliyeed hadda waxaan fasaxaynaa madaxda qaranka guddoomiyaha gobolka iyo wufuudda la socota dhammaantooda waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin sidaad uga soo qayb gasheen bannaanbaxa sidaad noo waxaan codanaynaa shacabka kala mahadcelinaynaa ardayda gabdhaha soomaaliyeed ciidamada kala duwan ee ka soo qayb galay saxaafadda dhammaantiin madaxda waxaa ciidda qamayna ka baxdo وأنا أقول يا درين كنا ونحسن يا جيمسين سلام مسوم قبشين وحوي ما توا مالين تاريخية واسكت أجنبي دكتورنا يا دكتورنا إنه نبصدارينه. ويا هيدا ويا الشيخ سمو ما أنت درين كاجا يوم بنا بحكور. يا وي أساساً في ضدك الصومالية كل جود وحكوا ضدك يدفعون وحن استأكسرنا هي دفاع ضدك وحن قبنا إلى لوكال دفاع ضدك وحن كلون لنا وندرينا ضدك إن العلماء حقنا ربان أيكو مكروفك إسكو كوبا هنا دل من دفاع كتير دلك وضدنا الدفاع كنا لنا محاولة جدا علماء الحقنا وحال قوة علماء إن حقنا ربان أو أيكو أورد diineeda dawlad sheeganaya oo madaxweynaha iyo wasaaraha oo wada jir ku baaqa khilaafsan makrofanada ay la kali goor isku yeelayaan ma ahin dadku difaaci karaan laakiin dalka in la wada difaacaan oo culimada u taagan maanta mid dhacda arrintaas wax maanta waayahay shaqsan waa maasan yahay daawadayaal si toos ah telefishinka SMS ayada naga daawanaysaan waxa wali muuqanayo oo bulshada Soomaaliyeed ay muujinayaan banaanbax xoogan wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya mas'uuliyiin kala duwan iyo kumanaan kun oo qofood ayaa halkan isugu yimid waxa ayna ka hadlayaan dareenkooda maanta oo ah dareenkooda ku aadan bulshada Soomaaliyeed iyo xaaladda ay ku sugan yihiin هذه الله سجين لما كسوق الجريان تشرف له كسوق الجو المناسبة تكون عاجلا ونسمع أماكن السباعيين بل يرى شكارها هواكا القوى إلى ربوليس القطارية وما تكون على شكاين دماتي وعاجلا فليسكا هنبيو فليسكا على ملاحظة على waayahay daawadayaal waxaan isla sii gaarina gabagabada banaanbixii weynaa ee maanta ka socday taalada daljirka daxsoon ee magaalada Muqdisho si toos ah waxaan idinku xirayaa barnaamijka maxaa cusub waa barnaamijka dunida iyo Soomaaliya oo uu si toos ah u daadahinayo Cabdiciis Cali Guuleed wariyaha istuudiyaha dhexe magaalada Muqdisho inuu hagayo دقائق